salaan ka bacdi waxaan rabaa marka u horeysa inaan u mahad celiyo walaalaheen soo qaban qaabiyay carwadan quruxda badan leh oo gudoomiye u yahay Cabdisataar oo runtii carwooyinka faa'iido badan ay ku jirto baryahaana aad dareemi karto in dalkeen horumarka uu sameynayo waxa kow ka ah carwooyinku waa nagu soo badanayaan marka maalin walba carwo iyo barnaamijyaan ku jirnaa waxay ku tusaysaa inaan horumar weyn aan ku socono alxamdulillah waxay ku tusaysaa carwooyinka waxyaalaha la kala faa'iido oo ay ka mid tahay isbarashada ganacsiga tirada badan leh maanta la soo bandhigi doono ay ganacsatada isku arkayaan xiriirka la kala qaadanayo wax soo saarkeena oo barmood gareynayno horumarinayno bulshada u bandhigayno inagoo oo la wadaagayno suuqgeyn weyn oo gudaha iyo dibaddaba ah waxa dibadda laga keeno iyo waxa gudaha laga keeno oo iskoor keenayno oo waliba warshadeeni ay u badan yihiin oo wax soo saarka dalka oo aan rabno si shaqo abuur badan loo helo in warshadeenu dadku ay bartaan waxa ay soo saaraanna ay ka fadilaadaan waxyaalaha dibadda laga keenayo aan rajaynayo in gacan badan la siiyo warshadeena iyadoo wasiirka ganacsiga oo nala fadhiyo runtiina ay tahay mas'uuliyadiisa inay horumariyaan carwooyinka iyo warshadahaba aadan ugu soo dhaweynayna wasiirkeena oo shaqooyin badan nala qabtay oo hadda ugu dambeysay asaga iyo team rugta ganacsiga ay wada tageen Oman iyo Bahrain oo runtii shaqo badan ka horreena oo Suudaan geeyay oo aad moodo inuu hawl badan oo ku soo kordhiyay ganacsigeena si badanna aan u horumarinayno waxa farxad ah inaan maanta laftigeeda ay shirkadda Orakis iyo Salaam Bank ay heshiis ku kala saxiixdeen maxaan ku iraahdaa xalane gudihiisa oo hadda arintaas in yar aan uga soo daahnay oo ku tusayso horumarka ganacsiga in ganacsatada ay la falgalayso shirkadihii waaweyn oo caalamka oo aad u jeedid in talaabaqaadkeena ay soo taasna ay u sabab tahay dawladeena runtii horumarka weyn ay noo sameynayso khayr Allah siiyo madaxweynaheena iyo ra'iisul wasaaraha iyo golaheena wasiirada horumarka iyo dadaalka ay wadaan oo ka dareemayso in hadda waliba ay bilaabatay in diin afiski oo hadda markuu noo bilowdo ay lacaga badan ay dalka imaanayaan markaasna ay nala bilaaban doonto inaan wax badan dalkeena ay ku soo kordhaan waxa farxad ah oo maanta wasiirka hortiina uga codsanayna iyo dawladeenaba maadaama carwooyinka ay nagu soo badanayaan dhalinyaro badan oo aad xariif u ah oo ilbax ah oo hadda carwooyin badan sameeyeen ay jiraan inaan helno wasiir carwadii qaranka oo ku taalay Taleex in loo baneeyo si aan u helno ganacsatadeenu inay bil kasta iyo 15 bari oo kastaba in sector kamida sectoradeena oo soo bandhigto maxaan ku raahdaa wax soo saarkiisa bulshaduna ay meesha isugu timaado sanadkiina laba jeer aan qabano carwo international ah oo caalamka uu nagala soo qayb gala sababtoo ah markasta anaga aasi jambar ahaan waxaana la ku casumaa carwooyinka dibadda sababta nala casumayo waxa u badan inaan anaga waxna ka soo gadano waxna u iibgeysano sometimes in dhaqaalaha iyo hoteelada iyo maxaan ku raahdaa dakhliga dalka waxa qayb ka ah lacagaha adag ee dibadaha loo qaadayo carwooyinku waxay qayb ka yihiin tourismka iyo dalxiiska sababtoo hoteelada inay shidayaan lacag adaga dalka soo galaysa ee bangiyada lacag badan heli doona waxay ka bilaaban doontaa marka wax kala gadashadeena waxaad arkaysaa badeeco ajayna u doonan lahayd ama Turki u doonan lahayd ama Mareykan u doonan lahayd ama Yurub u doonan lahayd asifu dalkaaga lagu tusaa meesha heshiis kala galaysa halkaas aad kala bilaabaysaa marka walaalkeen Cabdisataar iyo teamkiisa dhalinyaradan oo aad maxaan ku raadaa xadaariga u ah waxaan ku soo dhaweynaynaa shaqada quruxda badan ay qabteen iyo waliba waxa kow ka hotelkan quruxda badan loo arkayso Hotel Elite waxay qayb ka tahay carwada horumarka dalka maanta hadda waxa arkaysaa inta qof oo fiirsanaysa hotelkan maxaa u malaynaysaa iyo meesha lagu qabanayo waxyaalaha waxay kamid tahay marka iibgeynta suuq ay kamid tahay ganacsiga marka asii jambar ahaan iyo wasaarad ahaanba anaga waxay noo tahay qurux gooni ay noo tahay carwadan furitaankeeda iyo ka qaybgalkeeda iyo bulshada waxaan si gaar ah rabaa inaan ugu mahad celiyo gudoomiye Cabdisataar iyo dhalinyarada teamkiisa oo shaqo qurux badan soo qabtay ganacsada Soomaaliyeedna waxaan ku boorinaa in ganacsiga aan la ogeyn oo gudaha aan ku haysano banaanka in loo soo bixiyo oo halkan aan isugu nimaano carwooyinka si aan isu baran anaga laftigeena waxay keenaysaa in la barto badeecadaadii waxay keenaysaa in adiga lagu barto waxay keenaysaa in si fudud wax laga gato oo delivery alaab yar dalab telefoon kaliya marka documentigaaga iyo maxaan ku raahdaa kaarkaaga laga qaato business kaarada laga qaato si fudud in wax laga dalbaday keenaysaa marka waana aragtaan cunooyinka dalkeena ka jira iyo hadda maqaayadeena si u koreen iyo si ugu socdaan waxaan leeyahay marka wariyaasheenana waxaan rajaynaynaa in idinkuna qayb ka noqotaan inaad nala barmood gareysaan carwooyinka iyo ganacsiga Soomaaliya wasiir waxaan leeyahay waa mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa dadaalkaaga iyo shaqooyinka aad rugta ganacsiga la wada iyo ganacsatada aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh